درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية إن على صاره wuxuu u sharaxnaa kaaba qabiil in laga dhigo qabiilkaa reer khasraj buu u dhashay intaa wixii ka dambeeyey ayaa wuxuu damacsanaa in la caleemo saaro oday aad looga dambeeyuu ahaa markii nebi moxamed madiine soo galay asagoo weli aan la caleemo saarin la arkay wanaaggii nebiga sharaftiisa iyo inuu yahay nebi xagga sare laga ayidaayo buqdi buu u qaaday marka waaba la iloobayba asaga caleemasaarkiisii iyo caanihii lagu shubaayey iyo ubax dhigii loo samaynayey ummadda way iloobeen nebi moxamed baa la raacay sala allahu calayhi wasalam xanaaqii maalintaa uu qaaday iyo buqdigii nebiga uu u qaaday wuu ku dhintay ninkan bacdamii xaaladiisu sidaa ahayd wuxuu balfakeray suu u badbaado inuu afkana ka muujisto ee iimaan laabta iyo calooshana uu gaalnimadiisa ka qarsado ilaan munaafiqa sidiisaba waa nin noocaas ah sida ilaahay tilmaamay in aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu saasuu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala munaafiqu waa dad aad iyo aad u dhib badan xataa gaalada way ka dhib badan yihiin sababta waxay tahay gaalku mawdnac iyo mabda' lagu raacuu leeyahay kan meel loo raaca ma laha munaafiqa mudabdibiina bayna dalika laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa qoladaanna ka mid ma aha kuwaanna ka mid ma aha waa dadka ugu dhibka badan saa darteed munaafiqa wuxuu ku dhex jiraa muslimiinta waa tukadaa waa soomaa waa xajiyaa jihaadkuu aadaa wax walba muslimiin sameeyaan wuu sameeyaa wax walba oo muslimiin ay sameeyaan ayuu markaa sameeyaa sidaa darteed dhibaatadiisu waa uurku gaale saasaa markaa lagu yaqaanaa dadka tafsiirka u saaxiibkaaya ahlu siiruhu waxay dhahaan rasuulkaa duulay sala allahu calayhi wasalam duulaankii bani mustaliq markaasaa waxay degeen meel biyo ah oo biyooyinkoodii ka mid ah iyo ceel muraysic la yidhaahdo ayay ku degeen aroor baa laga doono waxaa meeshii biyo ka raadiyey oo dadkii biyo u raadiyey nin cumar ibnualkhadaab ajiirkiisii ahaa oo reer bani khafaar ah ayaa meeshii aaday waxaa lagu magacaabi jiray jahjaah ninkaa bin saciid faraska ayuu cumar u hogaaminayey waxaa soo ciriiriyey jahjaan baa la yidhi sinaan aljuhani nin lagu magacaabo ee reer bani cawf xaliif la ahaa oo reer khasraj ah ceelkii bay isku ciriiriyeen ceelkii baa waxoogaa dagaal ku dhex maray labadoodii way dagaalameen ninkii juhaniga ahaa waa qayliyey markaasuu dhaa yaa macshara alansaar ilan reer khasraji waaye war yaa reer ansaar aheey ninkii khafaariga ahaana waa qayliyey asagoo wuxuu yidhi yaa macshara almuhaajiriin war yaa muhaajiriin ahooy waa la kala qayliyey ninkii jahjah ahaa rajul oo muhaajiriinta ka mid ah oo jucaal la yidhaahdo ayaa gacan soo siiyey baa la yidhi cabdullaahi ibnu ubay oo hadda tilmaanay oo munaafiqiinta madaxoodii ahaa ayuu intuu aad arrintaa ka hadlay wuxuu yidhi ma annagii soo dhoweynay oo hantideennii iyo waxeennii iyo wax kasta ku furnay oo iyagoo cidlo ahoo gacan maran ay noo yimaadeen hantideennii xoolaheennii aan siinay may bilaabeen muhaajiriin maanta inay noo habarwacdaan wallaahi mahalkooda iyo mahalkeenna ma ahan ilaa carabta waxay ku mahmaahi jirtay maahane oo ahaa sammin kalbaka ya'kuluka eygaaga cayil ha ku cunee eygaaga raashin sii ey buu ku tilmaamay annagaa cayilinay oo isku keennay inay maanta noo habarwacdaan inay maanta noo dhahaan isku keena habarwacdaan waa waxaan gacanteenna ku kasbanay buu yidhi sammin kalbak eygaaga cayili oo hilib sii oo dharji mar allaala markuu hilibku ka batana adi ha kugu soo rujo oo ha kugu soo laabto hana ku cuno aniga buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaan magaalada madiino ku noqono midka cisiga badan ayaa ka bixin doona kan dulligaa magaalada madiina cisiga asuu iskula jeedaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool dulligana nebigu ula jeedaa sala allahu calayhi wasalam waan ka saarayaa buu yidhi oo midka cisiga badan ayaa ka dulliga badan ka bixin doonaa magaalada madiina xaalku markuu meeshaa maraayey oo arrintu ay saa isugu soo biyo shubatay zayd ibnu arqam oo canug yariis ah ama dhallinyaro ah ayaa xaadir aha oo maqlaayay wuu soo cararay markaasuu rasuulka u sheegay sala allahu calayhi wasalam
ninkii cabdullaahi ibnu ubaya ahaa xaaladaasuu dhahay rasuulka ilaahayo. rasuulka ibnu ubayuu u yeedhay. maxaa kugu kalifay baa la yidhi arrintaa. wuu dhaartay, beebtiis waaye buu yidhi. wax aan irini markaa ma jiro, hadal aan ku hadlay ma jira buu yidhi. cabdullaahi wuxuu yidhi waaladii anzala calayka alkitaab, macbuudka dushaada kitaabka kugu soo dejiyaan ku dhaartaye maa qultu shay-an, waxba ma aanan dhihin buu yidhi oo arrintaa la sheegaya ah. zaydna waa beentii oo been buu markaa sheegayaa. zayd aad buu u murgooday. weliba niman asharaaf ahaa oo raggii cabdullaahi ibnu ubay ibnu saloola dadkiisii ahaa ayaa waxaa dhacday inay dhaheen moxamedow ma ka yar hadalkiisa ayaad qaadanaysaa oo ma waxaad inkiraysaa ood beeninaysaa shariifkeennii iyo ninkeennii sheeqa ahaa oo kabiirkeennii ahaa hadalkiisa rumayn maysid miya? ghulaamkan ansaariga ahna ma rumaynaysaa? waxaa la arkaa inuu wahmiyey, inuu si kale u fahmay hadalkaba inuusan xafidin. xaaladda noocaas ah nebiga sala allahu calayh wasalam facadarahu, wuu cudray. ninka zayd ibnu arqam ahaa aad buu u murugooday. murug fara badan baa gashay. markaasuu ilaahay zayd inuu u rumaynayo, cabdullaahina hadalkiisii la beeninayo. suuraddan baa markaa soo degtay aayadahan. bismi illaahi araxmaani araxiimi idaa jaa'aka, hadday kuu yimaadaan rasuulka ilaahayow almunaafiquuna, munaafiqiintii waa cabdullaahi ibnu ubaye, qaaluu waxay odhanayaan nashhadu waxaan qiraynaa innaka adiga la rasuulullaahi, rasuul ilaahay inaad tahay. waa munaafiq shaaladiisa. xaaladda lagu yaqaanaa saas ah, waxaan qiraynaa rasuul ilaahay inaad tahay, wallaahu yaclamu, ilaahayna waa kii ku cilmi badan oo wuu og yahay innaka adiga le rasuuluhu, rasuulkiisii inaad tahay. loogama baahna munaafiq qiritaan uu qira, uu markhaati ka noqdo inaad rasuul ilaahay tahay. idaa jaa'aka, hadday kuu yimaadaan almunaafiquuna qaaluu nashhadu, waxay odhanayaan waxaan qiraynaa oon markhaati ka nahay innaka adiga la rasuulullaahi, rasuulkii ilaahay inaad tahay. wallaahu yaclamu, ilaahayna waa og yahay oo waa kii ku cilmi badan innaka la rasuuluhu, rasuulkiisa inaad tahay. wallaahu ilaahay sayashhadu wuxuu qirayaa ina almunaafiqiina, munaafiqiintu lakaadibuuna, beenaalayaal inay yihiin. cabdulaahigaa kuu dhaaranaya waa beentiis rasuulka ilaahayow. canugaa yaree reer ansaar ah ee zayd ibni arqam ah waa runtii, hadalkiina waa yidhi, waxay ay ku hadlayaanna waa hadal been ah. iftara iyo kidbiya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. wallaahu yashhadu, ilaahay markhaati ayuu ka yahay oo wuxuu qirayaa ina almunaafiqiina, munaafiqiintu lakaadibuuna, beenaalayaal inay yihiin. maxaa ku kalifay inuu dhaarto? waa nin weyne. maxaa ku kalifay inuu beentahay? waxaa sheegay ittakhaduu, waxay ka samaysanayaan aymaanahum, dhaaryaalkooda junnatan gaashaan. fasadduu, waxay ka jeedinayaan ummadday ka jeediyeen can sabiiliillaahi, ilaahay jidkiisa. innahum ayagu waa munaafiqiintee saa'a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluuna, waxay ahaayeen kuwa camal ahaan u qabtaa. camalkay qabanayeen ayaa xumaadoo ah inay afkana ka rumeeyaan, uurkana ay ka beeniyaan, inay nebiga been ugu dhaartaan sala allahu calayhi wasalam. camal kastoo ay qabanayaan iyo xaqdiga ay qalbiga ugu hayaan islaamka, mar uun ay jeclaadaan inuu baaba uu burburo. xaaladoodaa sidaa ah, taabaa xumaatay buu yidhi ilaahay. ittakhaduu, waxay ka samaysteen aymaanahum, dhaaryaalkooda junnatan gaashaan. waa gaashaan waaye waxaan ay dhaaranayaan in naftoodana la badbaadiyo, la ammaangeliyo, xoolahooda loo ammaangeliyo, meehe wax kaley arrintaa u samaynayaan ma jiro. ittakhaduu, waxay ka yeelanayaan aymaanahum, dhaaryaalkooda junnatan gaashaan. fasadduu, waxay ka jeedinayaan ummaddana can sabiiliillaahi, ilaahay jidkiisa. innahum ayagu saa'a, waxaa xumaaday maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna, kuwa camal qabta. daalika, arrintaa waxay ku dhacday biannahum ayagu aamanuu, inay rumeeyeen, humma kafaruu, kadibna ay kufriyeen. macnaha afkana ay ka rumeeyeen, qalbigana ay markaa ka inkireen. fatubica, waa la daboolay calaa quluubihim, quluubtooda dushooda, fahum ayagu laa yafqahuuna, waxba fahmi maayaan. waxay fahmayaan iyo waxay garanayaan ma jirta buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waxay ku socdaan waa iftara iyo kidbi iyo been, waa waxaan waxba markaa ka jirin. munaafiqu aad iyo aad buu u dhib badan yahay. calaamadaha munaafiqa lagu yaqaana, idaa xadatha kadaba, markuu hadlayo been buu sheegaa. marka lala ballamo ballantuu ka baxaa. marka la ammaanaysto ammaano loo dhiibo wuu khiyaanaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa lagu yaqaanaa waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala, mar allaala marka ay waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala, markay salaad u kacayaan wahsashay ku kacaan. yuraa'uuna annaas, munaafiqiintu dadkay istustusaan.
walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan in yar mooye rabbi ma xusaan subxaana wa tacaala. munaafiqa calaamaadka lagu yaqaano rasuulku wuxuu tilmaamay afqal salawaat, salaadaha kuwa ugu culus oo munaafiqiinta ku culus waa salaada subax iyo salaada cishaa'iga. labadaas salaad say u xaadiraan way adag tahay. labadaas salaadood ma xaadiri karaan, sababtu waxay tahay cibaadadooda waa riyaa istustus. labadaas salaadne inta badan mugdi baa lagu tukan jiray, dadka arki maayaan. salaadaha la arkee muuqdee duhurkii, casirkii, imtiqaana maqribka yay inta badan soo xaadiraan. marka saa darteed calaamad munaafiqiin bay ka mid tahay. ha layska ilaaliya salaada subax iyo salaada cishaa'igoo laga jiifto, salaada subax oo masaajidka aan la tegin, salaada subax oo aan la xaadirin. wallaahi hadday dadku ogaan lahaayeen fadliga iyo wanaagga labadaas salaadood ku jirta, ayagoo siqayo, birada ku siqayo, ku gurguuranaya yay soo xaadiri lahaayeen buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. idan munaafiqiintu aad bay u dhib badan yihiin. mar allaala markay gaaladu kor yihiinna gaaladay u alaleeyaanay markaa la jiraan. markay muslimiintu kor yihiinna muslimiintay dhahaan war anagu soo micigiina maanaan ahayn, soo idinlama dagaalamaynin oo idinma gacan siinayn miya? gaaladu markay adkaadaan waxay odhanayaan alam nastaxwid calaykum wanamnacukum min almu'miniin, miyaanan muslimiinta idinka simbirraxinoon idinka jeedinin, nasiiya kisteena. marba meel baa lug ugu jirtaa. sidaa darteed buu ilaah yidhi idaa jaa'aka almunaafiquuna, munaafiqiintu hadday kuu yimaadaan qaaluu waxay odhanayaan nashhadu waxaan qiraynaa oon marag ka nahay innaka adiga la rasuulullaahi, rasuulkii ilaahay inaad tahay, wallaahu ilaahayna yaclamu waa kii og innaka adiga la rasuuluhu. maayagaa looga baahan yahay qiritaan, ilaahay baa ku cilmi badan oo ah kii ku ogaasho badan innaka la rasuuluhu, rasuulkiisa inaad tahay. wallaahu ilaahayna yashhadu wuxuu qirayaa ina almunaafiqiina, munaafiqiintu lakaadibuuna, beenaalayaal inay yihiin. ittakhaduu waxay ka samaysanayaan aymaanahum dhaaryaalkooda junnatan gaashaan, ay rabaan in naftoodii maalkooda lagu ammaangeliyo. fasadduu waxay ka jeesanayaan, ummaddiina ay ka jeedinayaan can sabiiliillaahi, ilaahay jidkiisa xaggii. innahum ayagu saa'a waxaa xumaaday maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal ahaan u qabta. daalika arrintaana waxay ku dhacday biannahum ayagu waa munaafiqiintae aamanuu inay yihiin kuwa rumeeyey humma kafaruu haddana kufriyey. macnaha afkay ka rumeeyeen, qalbigana way ka inkireen. fatubica calaa quluubihim, quluubtooda dusheeda ayaa la dabooloo xaqii iyo diinkii iyo wixii ilaahay amray haddii lagu shubo xataa gaari maayo, geli maayo, qalbigay ka qufulan yihiin. fatubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuuna, wax ay fahmayaan ma laha. fahum ayagu laa yafqahuuna, garaad ma laha, fahmad ma laha, diin ay ku fahmaan. saa darteed ayay xaaladoodu sidaa tahay. rasuulku wuxuu loo tilmaamay, ilaahayna yidhi wa minhum man yastamicuuna ilayk, munaafiqiinta waxaa ka mida kuwa ku dhegaysanaya. xataa idaa kharajuu min cindika, markay agtaada ka tagaan ayaa waxay ku odhanayaan dadkii cilmiga la siiyey, maadaa qaala aanifan, hadda muxuu lahaa? waa fadhiye fiiri. markuu soo baxayo dadkii cilmiga la siiyey u dheg raariciyey, qalbiga fiican ku dhegaystay wacdigii nebiga, ay dhahayaan maadaa qaala aanifan ulaa'ika aladiina tabaca allahu calaa quluubihim, waa kuwuu ilaahay qalbiga ka daboolay subxaana wa tacaala, waa kuwuu ilaahay nacay subxaana wa tacaala. munaafiqu fi darki alasfali min annaar, jaranjarooyinka ugu hooseeya naarta yuu ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. idan dalika biannahum aamanuu huma kabacdina kafaruu, way kufriyeen. fatubica calaa quluubihim, quluubtooda dusheeda markaa la daboolay. fahum ayagu laa yafqahuuna, waxba fahmi maayaan, garaad iyo caqli wax lagu fahmana ma laha. waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim, tilmaamahoodaa weli noo sii socdaa, balse meesha hanoo joogta caawa. wabillaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. waxaan ku jirnaa suuratu lmunaafiquun. waxaa noogu soo dambeysay munaafiqiinta iyo sida xaaladoodu ay tahay. ilaahay wuxuu noo soo tilmaamay rasuulkii allow hadday kuu yimaadaan munaafiqiinta
waxay ku odhanayaan waxaan qiraynaa rasuulkii ilaahay inaad tahay. qaaluu nashhadu innaka la rasuulullah. ilaahayna waa og yahay oo wuu ku cilmi badan yahay inaad rasuulkiisa tahay buu yidhi ilaah. wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun. ilaahayna wuxuu qirayaa munaafiqiinta beenaalayaal inay yihiin. waxay ku hadlayaan waa kidbi, iftara iyo been. sababtuna waxay tahay ittakhaduu aymaanahum junnatan. dhaarayaalka waxay ka samaysanayaan gaashaan ay dadka isaga gaashaamiyaan. si aan loo ogaano way ku dhuumanayaan. fasadduu can sabiiliillaahi. ummaddana waxay ka jeediyaan jidka ilaahay. innahum saa'a maa kaanuu yacmaluun. waxaa xumaaday munaafiqiinta wixii ay ahaayeen kuwa camal qabtaa. sababtuna waxay tahay daalika biannahum aamanuu. daalika arrintaa waxay sabab u tahay biannahum munaafiqiinta ayagu inay aamanuu rumeeyeen. humma ka bacdi kafaruu ay kufriyeen. afkay ka rumeeyeen, qalbigay ka gaaloobeen. fatubica calaa quluubihim. quluubtoodiina waa la daboolo. fahum laa yafqahuuna, waxba fahmi maayaan. waidaa ra'aytahum, haddii aad aragta rasuulka ilaahayow ragga munaafiqiinta, tucjibuka, waxaa ku cajab gelinaya ajasaamuhum, jismigaalkooda, qaab dhismeedkooda iyo xooggooda, iyo waxaa ku cajab gelinaya buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala sida ay markaa yihiin. aad baad ula cajubaysaa, aad baad ula yaabaysaa, aad baa waxyaabaha iyo sida ay qaab dhismoodkoodu yahay waad la cajibaysaa. waxaa madax u ahaa cabdullaahi bnu ubay bnu saloola, nin dheer oo xoog leh oo mar allaala marka la eego la fiiriyo indhaha buuxiya ayuu markaa ahaa. astaamaha iyo tilmaamaha lagu yaqaana rasuulkii allow ragga, mar allaala markaad aragto tucjibuka, waxaad la dhacaysaa oo ku cajab gelinaya ajasaamuhum, jismiyaalkooda. wa in yaquuluu, markay hadlayaanna tasmac, waad maqlaysaa liqowlihim, qowlkooda, fasaaxadda iyo balaaqada iyo waxyaabaha dadka ay ku duufsadaan ay ku dhumiyaan, hadalkoodana waad la yaabaysaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. ka'annahum, waxaad moodaa laakiin waxtar la'aantooda, fahmad la'aantooda, garaad la'aantooda, khushub iyo qoryo, musannadatun la tiirtiiriyey, qoryo meel lagu dadboo layska dhigdhigay ayaad moodaa. yaxsabuuna, waxay u malaynayaan kulla sayxatin, qaylo kasta dhammaanteed, calayhim korkooda inay tahay. hum ayagu alcaduwu, cadowyaalo waaye. munaafiqiinta waa cadow ee faxdarhum, ka digtoonow rasuulka ilaahayow. qaatalahum allah, allah dulleeyee. annaa yu'fakuuna, see loo iilayaa. xaqa saabuu cad yahaye, see looga dadbaa. maxay ikhlaas ugu dari waayeen iimaankooda? maxay xaqa iyo taacada ilaahay dhabnimo ugu aamini waayeen? aayaddu waxay tilmaamaysaa calaamaad lagu yaqaano munaafiqiinta. rasuulka allow, haddaad aragto munaafiqiinta buu yidhi ilaah, waidaa ra'aytahum, haddii aad aragto, tucjibuka, waxaa ku cajab gelinaya ajasaamuhum, xooggooda, jismigooda, xoogga ay markaa leeyihiin. wa in yaquuluu, markay dhahayaan oo ay hadlayaanna, tasmac, waad maqli, waad dhegaysan liqowlihim, qowlkooda. waa hadal cajiib badan bay ku hadlaan, hadallo fiicfiicanoo qofku xaq u moodo, fasaaxad bay leeyihiin. inkastoo ayaguusan qaas ku ahayn oo ilaahay dad fara badan oo balaaqada siiyo, sida nebigu tilmaamay sal allau aleyh wasalam, bayaanku waa sixir. qofka hadal caddayntiisa waa qismi oo min anwaaci sixir ka mid ah. idan munaafiqiinta si qaas ah ayuu u tilmaamayaa ilaahay in qowlkoodu la maqlaayo, hadal fasaaxad fiican leh inay leeyihiin. tasmac liqowlihim kaannahum khushubun, qoryaad moodaa buu yidhi ilah subxaana wa tacaala, tiirar musannadatun oo la sanaday, la tiiriyey oo la dadbay, oo meel markaasaa loo dhigay. weynaanta ay leeyihiin iyo waxtar la-aantoodii fahmi daradooda. yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim, qaylo kastoo dhacda dushooda inay tahay bay moodaan. intaasi digtooni bay qabaan, takanaha ay galeen ay diinta ka galeen, sida mar walba ay muslimiinta shirqool iyo dhibaato ugu maleegayaan, ayaa waxay moodaanba qaylo kastoo soo yeertay inay korkoodu tahay.
aayad hadday soo degto way digtoon yihiin. yaxdaru almunaafiqiin an tunazala calayhim suuratun tunabi'uhum bima fii quluubihim. waxay ka digtoon yihiin munaafiqiinta in lagu soo dul dejiyo suurad u waranta waxa quluubtooda ku jira buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. idan qaylo kasta iyo wax kasta oo soo dhawaaqaba waxay moodaan korkoodu inay tahay hum ayagu waa munaafiqiintee alcaduwu waa cadowyaalo, waa cadow ee mu'miniinta leeyihiin. ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim. waaaakhariina min duuniya loola jeeda waa munaafiqiinta, kuwo kaloo sukadooda ahoo idinka aadan ogeyn way idinku dhex jiraan. ilaahay baa og subxaana wa tacaala. saa darteed baa munaafiqiinta ilaah uu ku tilmaamay inay cadowyaalo yihiin. humul caduwu, munaafiqiintu waa cadowe, faxdarhum, ka digtoonow. qofka iimaanka lahow digtoonidaada ka qab munaafiq. aad buu u dhib badan yahay. gaalka meel loo raacuu leeyahay, mid aan meel loo raacana lahayn. salaadan ku ag taagan, waysqaadka kaa badiya, qur'aanka kaaga sarreeya, khushuuca iyo waxyaabaha uu u tukanaya markaad aragto aad la yaabayso, aad moodda walaalka oo kale inuu yahay, cadowgaagana ahaa jiree. faxdarhum, ka digtoonow kuwa rasuulka ilaahayow. qaatalahum allah, allah dulleeya dhammaantood, allah halaagee. annaa yu'fakuuna, see loo dadbaa, see xaqa looga leexiyaa kuwa. saasuu xaqu u bayaan yahaye. waidaa qiila, haddii loo yidhaahdo lahum, ayaga waa munaafiqiintee, tacaalow kaalaya, yastakfir, ha idiin dembi dhaaf weydiiyo, lakum adinka rasuulullaahi, rasuulkii alle ha idiin dembi dhaaf weydiiye kaalaya haddii la yidhaahdo, lawow, way iilayaan ru'uusahum, madaxyaalkooda. wara'aytahum, waxaad arkaysaa, wara'aytahum yasuduuna, ayagoo jeesanaya ama ummadda ka jeedinaya xaqa. wahum mustakbiruun, haddana isla waaweyn. wahum ayagoo mustakbiruuna, mustakbiriin ah, ayagoo iswaweynaysiinaya. istikfaarta nebigay iska weynaysiinayaan. dembi dhaaf weydiisigii nebigu uu dembi dhaaf weydiin lahaa ayay ka kibrayaan. saasaad arkaysaa. cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool, saan tilmaanay munaafiqiinta madax u ahaa, ayaa waxaa la yidhi mar buu dhibaato iyo qalad iyo waxyaabo galay. markaasaa laga codsaday inuu nebiga loo geeyo oo nebiga uu u tago oo istikfaar u weydiisto. markaasuu isweynaysiiyey, wuu ka kibray. nin shalay noo yimido maskiin ahoo annaga aan soo dhowayno, guri haysaninoo gacanteen aan wax ku siino, see aan ugu tegayaa buu yidhi. kibir iyo isla weyni wuu ka qaaday. taa darteed buu ilaahay ku cabirayaa munaafiqiinta inay xaaladoodu sidaa tahay. waidaa qiila, haddii loo yidhaahdo lahum, ayaga waa munaafiqiintee, tacaalow kaalaya, yastakfir lakum, ha idiin dembi dhaaf dalbo oo ha idiin dembi dhaaf weydiiye adinka rasuulullaahi, rasuulkii ilaahay dembi dhaaf ha idiin dalbee. haddii la yidhaahdo lawow, waxay iilayaan oo ay leexinayaan oo ay dhic u sii jeedinayaan ru'uusahum, madaxyaalkooda. meeshay soo qaabili lahaayeen dhinac kale u sii jeedinayaan. wara'aytahum, waad arkaysaa rasuulkii ilaahayow, yasuduuna, inay ka jeesanayaan. wara'aytahum yasuduuna, inay jeedinayaan haddii kale ummadda ay xaqa iyo waxa ilaahay amray ay isku dayaan inay ka jeediyaan. wahum mustakbiruuna, ayagoo isweweynaysiinaya oo kibir iyo waxyaabo kale markaa ku socdee. sawaa'un calayhim, dushooda waa isku mid buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. astakfarta, u dembi dhaaf weydiisayaa lahum ayaga, am lam tastakfir, ama ha u dembi dhaaf weydiinina lahum ayaga, lan yakfir allaahu lahum, ilaahay maba dhaafaya subxaana wa tacaala. munaafiq ilaahay u dembi dhaaf weydiiye rasuulka allah, ama ha u dembi dhaaf weydiinine, ilaahay maba cafinaya subxaana wa tacaala. sawaa'un calayhim, dushooda isku mid ah. astakfarta lahum, u dembi dhaaf weydiisaya rasuulka ilaahayo, am lam tastakfir lahum, ama ha u dembi dhaaf weydiinina, waa isku midoo. maxaa dhacay? lan yakfir allaahu lahum, ilaahay u dhaafi maayo. waayo ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alfaasiqiina, qoom oo faasiqiin ah. sida ilaahay tilmaamay aayada kale, istakfir lahum aw laa tastakfir lahum, in tastakfir lahum 70 maratan, haddaad 70 jeer u dembi dhaaf weydiiso, ilaahay u dembi dhaafi maayo subxaana wa tacaala. la yakfir allaahu lahum dalika biannahum kafaruu billaahi
warasuulihi wallaahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin. ilaahayna qoom faasiqiinoo fallaagaa maba hanuuniye subxaana wa tacaala. cabdullaahi ibnu ubay ibnu salal markuu dhintay ra'sulmunaafiqiin, wiilkiisa cabdullaahi ibnu cabdullaahi baa nebiga u yimid, kana codsaday in qamiiskiisa uu siiyo si aabi uu jirkiisa ula xiriiriyo markuu kafanayo. wuu siiyey nebiga sal alla aleyh wasalam. intaa kabacdi buu dhahay kaalay igula tuka rasuulka ilaahayo. nebigu tallaabuu u qaaday suu ugu tukada cabdullaahi. cumaraa soo qabtoo soo jiido dha yaa rasuulallah say ugu tukanaysaa munaafiq waaye. ninkii ogaa ee xaalkiisa saa ahaa. rasuulka ilaah wuxuu dhaha cumarow isii daa, dembi dhaaf ayaan u weydiin doonaa ilaahay. waayo waxaa lay amray khiyaar. haddii aad u dembi dhaaf weydiiso u dembi dhaaf weydii, ama ha u dembi dhaaf weydiinin. haddaad 70 jeer u dembi dhaaf weydiiso, in tastakfir lahum 70 maratan, 70 jeer buu yidhi ilaahay, falaa yakfir allaahu lahum. haddii aan ogahay 70 haddaan uga badiyo inuu ilaahay u dhaafayo, waan u samayn lahaa buu yidhi. tii markays xaaladaa ay dhacday oo rasuulka uu ku tukaday kadib ba waxaa soo degay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan. rasuulka allow ha ku tukanin munaafiq dambe dushiisa. walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan, weligaa ha ku tukanin. walaa taqum calaa qabrihi, qabrigiisana ha istaagin. waayo salaada janaasa waa dembi dhaaf weydiis, loo dembi dhaaf weydiinaya axadka. taabuu ilaahay tilmaamayaa sawaa'un calayhim, waa isku mid munaafiqiinta dushooda. astakfarta lahum, u dembi dhaaf weydiisayaa, am lam tastakfir lahum, ama ha u dembi dhaaf weydiinine, layakfir allaahu lahum, ilaahay maba u dhaafaya subxaana wa tacaala. waayo ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alfaasiqiina, qoom oo markaa faasiqiin ah. hum ayagu waa munaafiqiinte, aladiina waa kuwii yaquuluuna yidhi laa tunfiquu ha nafaqaynina, waxba ha iska siinina calaa man cinda rasuulillaahi, shakhsi kasta oo nebiga agtiisa jooga dushiisa waxba ha siinina, xataa yanfaduu ilaa ay ka kala yaacayaan. anakaa soo dhoweyno biilalka aan siinay iyo waxaan gacanta ku haynay ku nool yihiin. weliba munaafiqiinta madaxoodii cabdullaahi mar allaala markii labadii ninay isku qayliyeen ee lagdanka yaraa dhex maray, muxuu yidhi maantay noo habarwacdeen miya? ujeeddadoodu waa imtiqaanaa samin kalbak ya'kuluk, eygaaga cayli ha ku cunee. sidaa darteed ayaa beritoole dhibaato kaley nagu keeni doonaan. ee qof kastow qofkaad wax siinaysay waxba ha iska siinina. markay baahi iyo gaajo iyo oon iyo guri la-aan ay arkaan, ayagaa kala ordi doonee. tiyuu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala munaafiqiinta inay hadalkaa ku hadleen. hum munaafiqiintu, hum ayagu aladiina waa kuwa yaquuluuna yidhi laa tunfiquu ha nafaqaynina, waxba ha siinina, calaa man shaqsi dushii oo cinda rasuulillaahi, rasuulka alla agtiisa ahaaday, xataa yanfaduu ilaa ay kala tegayaan. gaajo iyo baahi aygan ku joogi karin, oon diin ku camalfali karin, oo moxamed wax uga baran karine, shilin ha iska siinina ilaa ay kala ordaan. walilaahi khazaa'inu asamaawaat, ilaahay waxaa u sugnaatay keedadka samaawaadka, khazaa'inta raashinka ay ku faanayaan oo ay leeyihiin waxba ha siinina, ilaahay baa gacanta ugu jirtaa subxaana wa tacaala. iyo walard, khazaa'inta arladaba. walaakina almunaafiqiina, laakiin munaafiqiintu laa yafqahuuna, ma fahmayaan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. dad garaad gaaban waaye, waxay u malaynayaan inay ayagu wax quudiyaanay wax bixiyaan. mar allaala markii reer ansaareed weliba dadkooda iimaanka qiimaha badan lahaa ay muhaajiriin u yimaadeen, ay u gacmahaatiyeen, xoolahoodiibay siiyeen, xaasaskoodiibay qaar damceen inay u furaan, beerahoodiibay yidhaahdeen wax ka kala qaata. xaaladahaasoo dhan ayadoo ay jirto yaa khazaa'inta iyo keedadka samaawaadka iyo arladaba ilaahay bay u sugnaatay subxaana wa tacaala. walilaahi, ilaahay bay u sugnaatay khazaa'inu asamaawaati, samaawaadka khazaa'intooda, kaydadka, raashinka, lacagta, wax allaala wixii khazaa'in ah oo kayd ahoo dhanba ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala. lahu makhaaliidu samaawaati waalard, ilaahay baa intaas u sugnaatay. yabsudu risqa liman yashaa, kuu doonuu u fidiyaa, kuu doonana wuu ku ciriiriyaa. walilaahi khazaa'inu asamaawaati waalard walaakina almunaafiqiina, laakiin munaafiqiintu laa yafqahuuna, ma fahmayaan. markii ceelkii muraysic la oran jiray ay ku doodeen labada ninkii muhaajirkii ansaarka ahaa, cabdullaahi hadallada uu ku hadlay waxaa ka mid ahaa, haddaan madiina ku noqono
midka dulliga ah ayaa magaalada laga bixin doonaa, waxaana ka bixin doona midka ciziga ah. casiiska asuu iskula jeedaa munaafiqa waa cabdulaahi, dulligana rasuulku ula jeedaa sala allahu calayhi wasalam. tiyaa la tilmaamayaa marka. yaquuluuna waxay yidhaahdeen lain rajacnaa haddaan noqono, waa munaafiqiintee weli waa cabdulaahi qaas ahaan, ila almadiinati madiine haddaan ku noqono, layukhrijanna wuu bixin doonaa oo wuu saari doonaa alacazu midka ciziga badan, minhaa magaalada wuxuu ka bixin doonaa aladal midka dulliga ahee liita. dulligayuu ula jeedaa waan rasuulka sal alla aleh wasalam. casiiskaniyuu iskula jeedaa asuu iska wadaa. saa darteed waa dadkii yidhi yaquuluuna lain rajacnaa, waxay dhaheen munaafiqiintu haddaan laabano oo aan meeshaan ka noqono, ilan jihaadkani way aadi jireene, haddaan madiina ku noqono, layukhrijanna alacazu midka ciziga iyo sharafta leh ayaa ka bixin doona, minhaa madiina xaggeeda aladal midka liitee dulliga ah. walilaahi alcizatu, cizadu ilaahay bay u sugnaatay iyo sharafta, walirasuulihi rasuulkiisay u sugnaato iska leh, walilmu'miniina mu'miniin baa iska leh. meel ay munaafiq ka soo gelayaan inay cizo yeeshaan ma jirto. walaakina almunaafiqiina, laakiinse munaafiqiintu laa yaclamuuna maba oga buu yidhi ila subxaana wa tacaala. cizada ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala, rasuulkiisay u sugnaatay. walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina, laakiinse munaafiqiintu laa yaclamuuna ma oga buu yidhi ila subxaana wa tacaala. xaqiiqdu inay sidaa tahay baysan ula soconin. cizadu inuu ilaahay leeyahay buu rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala. ayabquuna cindahum alciz, magaalada agtooday cizi iyo wanaag ka raadinayaan. arrintaa iska daayaano, waayo cizada oo dhan ilaahay bay u sugnaatay subxaana wa tacaala. in alcizata lilahi jamiican, man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiican. qofkii cizo doonaya, cizada oo dhan ilaahay xaggiisa ayay ahaatay subxaana wa tacaala. laakiin kaafir iyo munaafiq intaasoo dhan ma jirto. in weliba ilaahay markuu ka sheekeeyey ina aladiina aamanuu huma kafaruu huma aamanuu huma kafaruu huma isdaaduu kufran lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiilan buu yidhi ilaahay. intii rumaysay waa iimaan afka ah, huma kafaruu haddana gaaloobay, huma aamanuu huma kafaruu huma isdaaduu kufran, waa munaafiqiintee kufrinimo iyo gaalnimo siyaadsaday. lam yakun illaahu liyakfira lahum, maba aha ilaahay ku saamaxaya subxaana wa tacaala, walaa liyahdiyahum sabiilan, jidna ku toosin maayo, ku hanuunin maayo. ee bashir ilmunaafiqiina, munaafiqiinta ugu bishaaray bianna lahum cadaaban aliiman, inay leeyihiin cadaab aliim ah oo xanuun badan buu dhahay ila subxaana wa tacaala. yay yihiin munaafiqiintu? aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin, waa kuwa ka samaysanaya gaalada owliye iyo saaxiibo min duuni almu'miniin, mu'miniinta sokadooda. mu'minkii oo joogay intay ka tallaabsadaan yay cadowga mu'miniinta ka samaysanayaan saaxiibee. ayabtaguuna cindahum alciza, ma sharafay ka rabaan, cizay ka raadinayaan agtooda miya? fa ina alcizata lilaahi jamiican, cizada oo dhanna ilahay bay u sugnaatay subxaana wa tacaala. cizoo dhan ilaahay baa iskale. waqad nazala calaykum fi lkitaabi, kitaabku wuxuu ku soo dejiyey ilaahay an idaa samictum aayaati illaah, haddaad maqashaan aayaadka alle oo yukfaru biha lagu kufrinayo, wayustahza'u biha lagu jeesjeesaayo, dadka saa yeelaya falaa taqcuduu macahum, hala fadhiisanina. haddiiba meel kuraasa la dhigtay la fafadhiyo, shir meel lagu haayo uu jiro, kitaabka alle wax looga sheegayo oo lagu jeesjeesayo, falaa taqcuduu macahum, hala fadhiisanina, xataa yakhuuduu fii xadiidin hayri, ilaa sheeko kale ay gelayaan. waayo inakum idan midluhum, haddaad la fadhiisataan kitaabkii oo la caynayo, wax laga sheegayo, lagu jeesjeesayo, inakum idan midluhum, isku mid baa tihiin buu yidhi ilaahay. ina allaha jaamicu almunaafiqiina waalkaafiriina
fii jahannama jamiican. ilaahayna kaafiriin iyo munaafiqiinba ayagoo wada jira jahannamuu markaa ku kulminayaa fii jahannama jamiican. saa darteed buu ilaah yidhi yaquuluuna lain rajacnaa, waxay leeyihiin haddaan noqono ila almadiinati, madiine aan ku noqono, layukhrijanna wuu ka saari doonaa alacaza midka ciziga leh, minhaa magaalada wuxuu ka bixin doonaa aladalla midka liitee dulliga ah. walilaahi alcizatu, cizaduna ilaahay bay u sugnaatay, iyo walirasuulihi rasuulkiisa, iyo walilmu'miniina mu'miniintoo dhan, walaakina almunaafiqiina laakiinse munaafiqiintu laa yaclamuuna ma oga buu yidhi ilah subxaanah wa tacaala. magaalada madiine markii la soo gelayay oo la yimid, mar allaala markii ay dhacday in magaalada lasoo galo, waxa uga soo hormaray baa la yidhi cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul wiilkiisii cabdullaahi. markaasaa intuu seef qaatay yuu albaabkii madiine istaagay. mar allaala markii dadku saa u soo gelgelayeen, markii aabbiyuu soo gaaray inuu soo galo yidhi ma gelaysid ilaa inaan qoorta kaa jaro, amase aad dhahda ninka ciziga leh waa muxamed, kal dilligee daliilkana waa aniga. weliba nebigaa ka celiyey baa la tilmaamaa. say noqotaba ee cizada ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala, rasuulkiisaa iska leh, mu'miniintaa iska leh, walaakina almunaafiqiina laakiin munaafiqiintu laa yaclamuuna ma oga. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyeyow laa tulhikum, yaynan idin mashquulinin, yaynan idinka hor istaagin amwaalakum maalalkiinii walaa awlaadakum awlaaddiinaba can dikri illaahi, ilaahay dikrigiisa ha uga mashquulina. maalka iyo owlaadda ilaahay xuskiisa. waman yafcal qofkii sameeya daalika arrintaa fa ulaa'ika kuwaasi hum alkhaasiruuna, way khasaareene. fa ulaa'ika kuwa hum ayaga alkhaasiruuna, kuwii khasaaray ah. ee dadka iimaanka lahow iska digtoonaada mar walba, dadka iimaanka lahow iska ilaaliya, yaynan idinka mashquulinin maalalkiinii owlaaddiina ilaahay dikrigiisa. intaad maal raadinaysaan, ood xoolo raadinaysaan, ood ganacsi ku jirtaan, oo tijaaro aad fadhisaan, ha iloobina ilaahay dikrigiisa. salaada ha hilmaamina. inta badan dikriga salaadaa lagu tilmaamaa. saa darteed buu ilaah yidhi rijaalu laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah. yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumca fascaw ilaa dikri illaah. inta badan dikri ilaah buu ku tilmaamaa, waayo waa waxa keliya ee qofka xiriirkii ilaahay ka dhexeeya adkeeya salaada. saa darteed buu ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka iimaanka laga helayow, laa tulhikum, yaynan idinka mashquulinin amwaalukum maalalkiina, walaa awlaadukum iyo awlaaddiinaba can dikri illaahi, ilaahay xuskiisa. waman yafcal qofkii sameeya oo ay ka mashquulisa maal ama owlaad ilaahay dikrigiisa, waman yafcal daalika arrintaa kii sameeya, fa ulaa'ika kuwaasi hum alkhaasiruuna, kuwa khasaaray waayee. wa anfiquu bixiya mimaa rasaqnaakum, waxaan idinku arsuqnay qayb ka mid ah, dhammaan ma ahee, min bacdi maa rasaqnaakum, waxaan idinku arsuqnay qayb ka mida baxsada, min qabli an ya'tiya, intaysan u imaanin ka hor, axadakum axadkiin, almowtu geerida, oo fa yaquula uu yidhaahdo rabbi rabbiyow lowlaa akhartanii, maad ii akhirtid, ilaahu maa ii kaadisid oo aad isugtid, ilaa ajalin qariibin, ilaa waqti dhow, oo fa asadaqa aan la sadaqa baxo, wa akun aan ahaaday min asaalixiina, saalixiintii kuwa suusuuban. intaan wakhtigaa la gaarin oo xadkiin markay geerida u timaado uusan sidaa dhihin, maanta khayrka ku dadaala oo wax baxsada, waxaan idinku arsuqnay qayb ka mid ah. haddii cibaado iyo diin iyo wax kasta aad ku socotaanoo khayr ah, dadaaloo ha kala joojoojinina. maskax fiican haddii rabbi idin siiyey oo wax lagu siyaadin karo, ummadda ku bixiya. wejigiina haddii wax lagu tari karo, ummadda ku bixiya. xoolo haddaad leedihiin, wax uun ka bixiya. cilmi haddaad leedihiin, wax uun ka bixiya. wa anfiquu, nafaqaysta oo bixiya, mimaa rasaqnaakum, waxaan idinku arsuqnay qayb ka mid ah, min qabli an ya'tiya, intaysan u imaanin ka hor, axadakum almowtu, geerida intaysan u imaanin. oo haddii geeridu u timaado maxaa dhacay? asan wax sadaqaysan. oo fa yaquula uu markaa yidhaahdo rabbi yaa rabbi, rabbiyow lowlaa akhartanii, haddaad i akhiri lahayd sooma fiicnaan lahayn. lowlaa akhartanii,
low ay dhacdee laa maba dhicine hadday dhici lahayd inaad ii akhirto lowlaa akhartanii ilaahu maad ii dibdhigtid ood ii kaadisid oo aad ii akhirtid ilaa ajalin qariibin ilaa ajal qariib ah wax badan xataa ma rabo in yaruu sadaqa kula baxo uu saalixiinta kala mid noqdo daqiiqadahaasuu u baahnaan lahaa lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin ilaa ajal iyo madal iyo wakhti qariib ahoo dhow oo gaaban oo fa asadaqa aan sadaqaysto wa akun aan ka mid ahaadee min asaalixiina kuwa saalixiintae fiicfiican walan yu'akhir allaahu ilaahayna akhiri maayo oo dib u dhigi maayo nafsan nafi idaa jaa'a ajaluhaa ajasheedu hadday timaado ajasheeda haddii la gaaro ta'khiir ma jiro ka hor baa la rabaa la dadaalo ka hor baa la rabaa wax la baxsado ka hor baa la rabaa sadaqo la dhiibto waayo wallaahu ilaahay khabiirun waa alla khabiir ahoo og bima tacmaluuna waxaad qabanaysaan ood samaynaysaan waxaad qabanaysaan ood camal qabanaysaan ilaahay waa og yahay subxaana wa tacaala sidaa darteed intaan wakhtigaa la gaarin ka hor wanaagga ku dadaala walan yu'akhir allaahu ilaahayna akhiri maayo oo dib u dhigi maayo nafsan nafi idaa jaa'a ajaluhaa madasheeda haddii la gaaro ajasheeda haddii uu yimaado la dib dhigi maayo wallaahu ilaahayna khabiirun waa alla khabiir ahoo og bimaa tacmaluuna waxaad markaa qabanaysaan ama aad samaynaysaan suuratu taqaabun suuraddeeda waa suurad madaniya ayadana waxay ka hadlaysaa bacfiga qiyaamaha isi soo saaritaanka sida ay dadku kala noqon doonaan waxyaabo fara badan oo dadka lagu guubaabinayo ilaahay adeecitaankiisa inay ka mid tahay waxyaabaha rabbi agtiisa khayrka iyo wanaagga looga gaaro xaaladahaasoo dhan ayay markaa wax ka tilmaamaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim yusabbixu lilaahi waxaa tasbiixsada waxaa u tasbiixsanaya lilaahi ilaahay maa fi samaawaati wixii samaawaadii cirar ku jiray wamaa fi lardi wixii arla ku suganba dhammaantood waxay nasahayaan ilaah subxaana wa tacaala waxaa nasaha oo u tasbiixsadoo hufa lilaahi ilaahay maa fi samaawaati iyo wamaa fi lardi lahu lmulku mulkigana asaguu u sugnaaday ilaahay waa maamulkii hanashada walahu alxamdu mahadna asagay u sugnaatay ilaahay wahuwa ilaahay calaa kulli shayin shay kasta qadiiran waa qaadirkii kari karaa wax walba kii awoodi kara buu ahaaday ilaah subxaana wa tacaala yusabbixu lilaahi waxaa nasaha oo u tasbiixsada ilaahay waxaa tasbiixsanaya oo u tasbiixsanaya lilaahi ilaahay maa fi samaawaati iyo wamaa fi lardi wixii samaawaadii arla ku sugan oo dhan lahu lmulku mulkiga ilaahay buu u sugnaaday walahu waxaa kaloo ilaahay uu leeyahay alxamdu mahad wahuwa ilaahay calaa kulli shayin shay kasta dushiisa qadiirun waa qaadirunkii kari kara huwa ilaahay alladii macbuudkii waaye khalaqakum idin abuuray fa minkum kaafirun waxaa idinka mida mid kaafir ah oo rabbigaa inkirsanoo diidaya wa minkum mu'minun mu'minna waa idinka mid wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxa aad qabanaysaan ood samaynaysaan basiiran waa kii arkaya subxaana wa tacaala wax ka cilan oo ka maqan oo ka qarsoonaanaya ma jiree ilaahay waa allaha idin abuuray idinka huwa ilaahay alladii allaha laydin odhanaya waa loo tasbiixsadaa ee laydin amray inaad u tasbiixsataan ood amarkiisa qaadataan ood u diyaargaroodaan maalintii la kulankiisa waa midka idinka idin abuuray huwa aladii khalaqakum waa ilaaha idinka idin abuuray fa minkum waxaa idinka mid ah kaafirun mid kaafir ah baa idinka mid ahoo inkirsan oo diidan ilaaha subxaana wa tacaala wa minkum waxaa kaloo idinka mid ah mu'min baa idinka mida ku rumaysan wallaahu basiirun waa kii arkaya khalaqa asamaawaati samaawaadka ayuu ilaahay abuuray iyo walarda arlada bilxaqi xaq buu ku abuuray ilaahay kuma abuurin samaawaadkii arlada ciyaar sida ilaahay tilmaamay maanan abuurin samaawaadkii arlada iyo wamaa baynahumaa laacibiin ciyaar uma abuurin buu yidhi maa khalaqnaahumaa ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale uma abuurin
dadka inay waxdaaniyada ilaahay ku gartaan, awoodda ilaahay inay ku fahmaan inuu rabbi jiro subxaana wa tacaala. ilaan samaawaadkan iyo makhluuqaadkan markaan fiirino laazim waa inuu leeyahay saanic sameeyey, waraa'i gadaashiisa in wax ka dambeeyo waa inaan qiri karnaa. idan waxyaabaha qofka uu arkayo aayaadka kowniga ah waxay tusayaan ilaahay jiritaankiisa, awooddiisa, waxdaaniyadiisa, inuu alla dhab ah yahay oo xaqiiqahoo cibaado ummadda u khalqay. taasaa markaa lagu ogaana. waxaa dhici karta markii la qalqahayey, markii la abuurahayy iyo kulli inaanan u jeedin, laakiin haddii ay jiraanoo wixii aan arkayna la sameeyey, axad sheegtayna uu markaa jiro, laabud waa inaan markaa ogaano. gaari haddaan aragna hadda meeshaa maraya, modelkiisa uu sidaa yahay, ay ku qoran tahay maada in jabaan baa sameeyey, waan dareemaynaa in uu jiro jabaan oo wax sameeya gaari. ilaan gaarigii baan aragnay. marka taa waxay tilmaamaysaa ilaahay samaawaadka uu abuuray, arlada uu abuuray, buurahan uu abuuray, asagana uu sheegtay. idan in ilaahay loo qiro, huwa aladii khalaqakum khalaqa asamaawaati, samaawaadkan buu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala. ilaahay waa midka khalaqa asamaawaati, samaawaadka abuuray, iyo walarda arlada. iskama abuurina bilxaqi, xaqnimo buu ilaahay ku abuuray, cadaalad buu ilaahay ku abuuray, baatil la'aan baa lagu abuuray, in asaga lagu gartaa loo abuuray. wasawarakum, wuu idin suuradeeyey ilaahay, waa midka idin qaabeeyey. fa axsana suwarakum, suurooyinkiinniina wuu wanaajiyey qaabkiinnii. wa ilayhi xaggiisa almasiiru, marjicuu ahaaday. bani aadamka wax ka suurad wanaagsan ma jiro. waan soo tilmaanay laqad khalaqna alinsaan fii axsani taqwiim buu ilaahay ka abuuray subxaana wa tacaala. xayawaanka midka ugu fiican ee ugu quruxda badan insaanku ma gaari karo. qaabka ilaahay bani aadamka uu u abuuray waa qaab taqwiim ah, waa qaab toosan, waa qaab ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. sidaa darteed ayuu rabbi qur'aanka aayado kale ku tilmaamay الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صورة الله لصورة دونو إلهي كاركبي كاقابيي. مركتا وحي تلماميسا إلهي أنو نودورتي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سي الله لسيدا دونو إله إذن كو قابيي رحمك هويو. مركا ربي ومتك سماوات كي أرلد أبو روحك كو أبوري وصوركم وإذن سورة ديي وإذن قابييو صورة buu ilaah idiin sameeyey. fa axsana wuxuu hagaajiyey ee uu toosiyey ilaahay suwarakum suurooyinkiini, quruxdiinniina ilaahay waa hagaajiyey. wa ilayhi almasiiru, xaggiisaana marjicu ahaaday. yaclamu, wuxuu og yahay ilaahay maa fi samaawaati, wixii samaawaadka ku jira oo dhan, iyo walardi arlada. arlada waxa ku sugan ilaahay baa ku cilmi badan. waxa cirarka ahaaday oo dhan ilaahay baa ku cilmi badan. wayaclamu, wuxuu kaloo ilaahay og yahay, waxaana loo tilmaamaya cilmigiisa gunweynaantiisa iyo sida uu u ballaaran yahay. wayaclamu maa tusiruuna, waxaad siriyaysanaysaan, iyo wamaa tuclinuuna, waxaad muujisanaysaanba. wallaahu ilaahayna caliimun, waa alla ku cilmi badan, iska daa wax kale, bidaati suduuri, waxyaabaha laabaha dhex yaala. waxay weli aan lagu hadlin ee lasoo wadana kii og waaya subxaana wa tacaala. ilaahay cilmigiisa aad buu u weyn yahay, waasic buu ahaaday. ilaahay cilmigiisa wasica kula shayin cilman, shay kasta ilaahay cilmi buu waasic kaga noqday. tii marka waxay tilmaamaysaa inuu og yahay samaawaad waxa ku jira oo dhan iyo wixii arla ku sugan oo dhan. ilaahay baa ku cilmi badan. kaaga sii daran wayaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuun, waxaad muujisanaysaan iyo waxaad siriyaysanaysaan ood qarsanaysaan, wuu ku cilmi badan yahay subxaana wa tacaala. wallaahu caliimun bidaati suduur, haddana waxa laabaha ku jira yuu ilaahay ku cilmi badan yahay subxaana wa tacaala. wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi allah. walaydinka xisaabatuu ilaahay yidhi waxa laabdihiina ku jira, haddaad qarisaan iyo haddaad muujisaan labadaba ilaahay waa isugu mid. sawaaءun minkum man asara alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakfin biاlleyl wasaaribun biاnnahaar. waa isugu mid subxaana wa tacaala. cilmigiisa aad buu u weyn yahay, gun weyn buu leeyahay ilaahay cilmigiisa. saa darteed buu ilaahay yidhi rabbi subxaana wa tacaala waxaa isugu mid ah sawaaءun minkum man asara alqawla, qofkii qowl siriyaysta. xagga iska fadhiisee maanta o dhan wax ku sheekayso adoon cidna ku ogaan, ilah waa ku ogyahay subxaana wa tacaala. waman jahara bih, qofkii kor u qaada. haddaad kor u qaaddo mikrofon qaadato waa lagu maqlaya, waa lagu ogyahay. waman huwa mustakfin biاlleyl, mid habeen mugdiya isku qariyey.
wasaarimun binnahaar iyo kun bannaanka la soo baxay maalin cad. ilaahay waa isugu mid subxaana wa tacaala. idan yaclamu wuxuu og yahay maa fi asamaawaati waalardi wixii samaawaadii arla ku sugan oo dhan. wayaclamu wuxuu kaloo og yahay ilaah subxaana wa tacaala maa tusiruuna waxaad siriyaysanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanaysaan ood iclaaminaysaan ood bannaanka keenaysaan. wallaahu ilaahayna caliimun waa kii ku cilmi badan bidaati suduuri waxyaabaha laabaha dhex ahaaday. alam ya'tikum miyaynan idiin imaanin naba'u aladiina kuwii wararkooda kafaruu gaaloobay min qablun hadda ka hor. war meeshaan aad fadhiseen dad baa fadhiyey. saad amarka alla u diidan tihiin baa ummadi u diidi jirtay. gaalaa joogi jirtay meeshaani warkoodii maba idiin imaanin miya? war sidii loo galay iyo dhibkii ku dhacay iyo halaagii lagu halaagay maba laydinkaga sheekayn? alam ya'tikum miyaysan idiin imaanin naba'u aladiina kuwii wararkooda kafaruu gaaloobay oo min qablu adinka idinka horay hadda ka hor. maxaa ku dhacay? fadaaquu waa la cadaabo markii gaalnimadii ay la yimideen. gaalnimadii ciribtii ka dambaysay fadaaquu waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim amarkoodii ciribtiisii dambe ama cirib xumidiisii ayay dhadhamiyeen. waa adduunka. walahum aakiran waxay ku leeyihiin cadaabun aliimun cadaab xanuun badan. way dhadhamiyeen buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. caaqiba xumidoodii bay dhadhamiyeen. dhibkii waxyaabihii ay la yimideen ayay dhadhamiyeen. ciqaabkii dhibaatadii markaa ka dambaysay. waa sida ilaahay aayad kale uu ku tilmaamay waka'ayin min qaryatin catat can amri rabbihaa. meeqa qarye ayaa jiri jirto amar alla ku madax adkaatoo diiday rabbigood amarkiisii rasuulkiisii. faxasabnaahaa xisaaban shadiidan intaan xisaabnay xisaabka kan. wacadabnaaha cadaaban nukran intaan cadaabnay cadaab nukri ahoo la inkiro. fadaaqat wabaala amrihaa waxay dhadhamisay cirib xumada amarkii ay sameeyeen. wa kaana caaqibatu amrihaa khusran ciribtoodii dambe khasaaruu noqday. marka kuwa ma lidinkaga sheekayn? ma idin imaanin miya? maxaa idinku kelifay ummadi diindiidtii ay ku socdeen ee lagu halaagay inaad idinka ku socotaan? waayo gabdho badan oo xijaab diidoo la cadaabay aad xijaab la-aan maanta ugu socotaan. waayo dad fara badan oo ribo cunoo la cadaabay aad ribadii maanta u cunaysaan. waayo dad fara badan xoolo agoon cunoo la cadaabay idinka aad ugu socotaan maanta. maxaa dhaco ummad fara badan oo salaadi diiday oo la halaagay aad salaad la-aan ugu socotaan? intaa maxaa laydinkugu sheegoo warkooda laydinkugu sheegayaa inaad ka hartaan waddadii ay mareen si aan laydiin cadaabin. inaad iska ilaalisaan wixii lagu cadaabay. inaad ka digtoonaataan jidkii ay qaadeen. saa darteed buu ilaah yidhi alam ya'tikum idinma imaanin miya naba'u aladiina kuwii wararkooda kafaruu gaaloobay min qablun hadda ka hor. fadaaquu waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim amarkoodii cirib xumidiisii iyo baalkii iyo halaagii ku dhacay. waa adduunka. walahum waxay leeyihiin aakhirana cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuun badan. daalika arrintaana waxay ku dhacday biannahu inay kaanad ahaayeen sababteeda ta'tiihim ti u timaada rusuluhum rusushoodiibaa bilbayinaati aayaad cadcad ah ula yimid. faqaaluu waxay yidhaahdeen abasharun yahduunanaa bashar maan hanuuninaya annaga? abasharun ma bashar iyo bani aadam baa yahduunanaa na toosinaya na hagaaya na hanuuninaya. fakafaruu way kufriyeen. watawallow way jeesteen. waistagna allah ilahina uu ka kaaftoomay subxaana wa tacaala. uma baahanba cibaadadoodii maba u baahanba ilah subxaana wa tacaala. cibaadada aan qabanayna anageenna anfacaysaa maahane ilaahay waxba u siyaadin mayso subxaana wa tacaala. garaado iyo sharaf ilaahay ka maqnayd u siyaadin mayso. waa cibaadadeena. caasiyitaankaan caasinaynana wax uga nusqaamaya ilaahay ma jiro subxaana wa tacaala. taa marka waxaa la doonayaa inaan garano oo aan fahamno waxaan aan qabanayna horta yay anfacaysaa. qaadashada aan qaadanayna awaamirta ilaahay yay dani u tahay. in axsantum lianfusikum haddaad wanaag fashaan naftiin u samayseen. wa in asa'tum falaha haddaad xumaataan idinkii idinka go'an tahay. sidaa darteed buu ilaahay leeyahy daalika biannahu taa waxay ku timid ahaasho ay ahaayeen sababteeda kaanat inay ahayd ta'tiihim tu ula timaada rusuluhum rusushoodiibaa bilbayinaati aayaad cadcad ah ula yimid. faqaaluu waxay yidhaahdeen abasharun yahduunanaa bashar iyo bani aadam miyaa na hanuuninaya annaga? bani aadam miyaa na hagaaya? bani aadam bashar ahoo annagoo kale ah miyaa wax noo sheegaya?
abasharun yahduunana maxay sameeyeen fakafaruu way kufriyeen watawallow iimaankii xaqii bay ka jeesteen waistagna allah ilaahna wuu ka kaaftoomay waa hamuud oo kale kadabad hamuudu binnudur faqaaluu abasharan mina waaxidan natabicu ma bani aadam hal ahoo annaga nagamida miyaan raacaynaa innaa idan la fii dalaalin wa sucur waaba dhunsannahay waana waalannahay a ulqiya dikru calayhi min baynina asagoo dhexdeenna jooga saalix miyaa lagu soo dejiyaa bay dhaheen waxyi iyo dikri iyo wax ilaah xaggiisa ka yimid bal huwa kadaabun waa beenlow cashirun oo shar badan muxuu ugu jawaabay ilaahay sayaclamuuna hadan beritoolay ogaan doonaan man ilkadaabu alashir beenaalaha shirta badan ma ayaga mase waa saalix calayhi salaam saa darteed bay qoomkaana wuxuu ku tilmaamayaa ilaahay inay yidhaahdeen bashar miyaana hanuuninaya abasharun ma bani aadam baa yahduunana na toostoosinaya oo na hagaya fakafaruu way ku kufriyeen marka warkii loo sheego xagga ilaah looga keenay watawallow way ka jeesteen xaqii iyo taacadii ilaahay waistagna allah ilaahayna waa halaagay macnaha wuu ka kaaftoomay hadduu ilaahay ka kaaftoomay waa la halaagay uma baahna ilaahay cibaadadooda subxaana wa tacaala waayo wallaahu haniyun xamiid ilaahay waa hodan ka kaaftoon oo ka taajirsan addoommada cibaadadooda xamiid waayo ilaahay alla la mahadiyo maxmuud ah subxaana wa tacaala zacama aladiina kuwii waxay sheegteen kafaruu kufriyey alla yubcathuu inaan la soo bixinaynin qiyaama maba jirtay yidhaahdeen qul dheh bala iska daa inaynan jirin qiyaamo way jirtaaye wa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye latubcathunna waa laydiin soo bixin huma latunabba'unna waxaa laydiin waramayaa bimaa camiltum waxaad camal ahaan u qabateen wadaalika arrintaana cala allaahi ilaahay dushiisa yasiiran waa tii ku fudud dad bacfiga qiyaamo inkirsan baa jira dad bacfiga qiyaamo inkirsan ayaa jira wayastanbi'uunaka axaqun huu waxay ku su'aalayaan bacfiga qiyaamo xaq miya qur'aanku xaq miya wayastanbi'uunaka axaqun huu qul ii haa dheh buu dhahay ilaahay qul ii wa rabbii innahu la xaq rabbigay baan ku dhaartay xaq waaye rabbigay ayaan ku dhaartee waa xaq xaaladda noocaas ah waxay dheen haddaan dhimano oo aan ahaana rufaad iyo wax baaba'ay oo cidaama ah innaa lamabcuuhuuna khalqan jadiid abuur cusub miyaana loo soo bixinayaa muxuu ilaah ku yidhi qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mimaa yakburu fii suduurikum waxaad noqotaan dhagxaan ama birar haddaad doontaan qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mimaa yakbur ama abuur kaloo dhagaxa iyo birta ka adayg badan mimaa fii suduurikum fasayaquuluuna man yuciidunaa waxay ku odhan doonaan yaana soo celinaya qul iladii fatarakum awala mara macbuudkii markii horeba idin abuuray ayaa idin soo celinaya dheh fasayunqiduuna ilayka ru'uusahum madaxay kuu ruxruxayaan buu yidhi ilaahay madaxay gedgedinayaan fasayunqiduuna ilayka ru'uusahum wayaquuluuna mataahu goormee qul casaa an yakuuna qariiban inay dhowaataaba laga yaabaaba saa ku dheh buu dhahay ilaahay zacama aladiina kafaruu gaaladu waxay sheegteen marka kuwii kufriyey alla yubcathuu inaan la soo bixinayn qul dheh balaa iska daa inaan laydiin soo bixinine waa laydiin soo bixin wa rabbii rabbigay baan ku dhaartee latubcathunna waa laydin soo bixinayaa qiyaamo humma ka bacdi latunabba'unna waxaa laydiin waramayaa iska daa soo saarid keliya ma ahee waxaad camal ahaan u qabateen ficilkii aad samayseen xumaantii aad gasheen wanaaggii aad suubiseen halhal baa laydinkugu sheegayaa bimaa camiltum wadaalika arrintaana cala allaahi ilaahay dushiisa yasiiran waa tii ku fudud ee fa aaminuu rumeeya dadow billaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisii uu soo dirsaday moxamed ahna rumeeya waannuuri aladii nuurkiina rumeeya alladii nuurkaasoo anzalnaa aan soo dejinay muxuu noqonaa nuurka marka qur'aankuu noqonayaa qur'aanku waa nuur yahdii bihi allaahu man ittabaca ridwaanahu subala asalaam wuxuu ku hanuuniyaa qofkii raaca jidka toosan nuur waaye ilaahay noo soo dejiya subxaana wa tacaala ma aadan ogeyn horay wuxuu noqon doonaa walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina waa nuur qof allaale qofkaan doonaan ku hanuuninaa buu dhahay ilah subxaana wa tacaala sidoo kale buu ilah yidhi awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaas nin meyd ahaa aan qur'aan aqoon aan tafsiir aqoonin aan aqoon wixii ilaahay ka reebay iyo wax kale haddana aan noolaynay qur'aankii
diinkii waxyigii tawxiidkii aan ku noolaynay oo aan nuur u samaynay yamshii bihi fi nnaas dadkuu la dhex marayaa nuur buu haystaa nuurun calaa nuur yahdi allaahu linuurihi man yashaa allahu ard mathala nuurihi ka mishkaat intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa qur-aanku inuu nuur yahay iftiin yahay xaqa iyo baadilkuu kuu kala cadaynayaa waxa ilaahay diiday waxa ilaahay ogolyaa buu kuu kala bayaaninayaa idan rumeeya faaaminuu billaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisii maxamed ahna rumeeya wannuuri aladii nuurkii anzalnaa aan soo dejinayna rumeeya buu yidhi ilaahay wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ood camal qabanaysaan khabiir kii og buu ahaaday yowma maalin baa laydiin soo bixin oo laydiin soo kulmin oo laydiin waramayaa waxaad camal qabateen ilaahayna dushiisa ku sahlan yajmacukum yowma maalin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala yajmacukum soo kulminaayo liyowmi aljamci baa laydiin soo kulminayaa maalintii kulminta leen awalini akhrin baa la sukeenayaa daalika kaa yowmu taqaabuni waa maalintii isdagidda buu dhaha ilaahay waa maalintii kedida waa maalintii iskidinta marka yowmu taqaabun waa magac ka mida magacyaalka maalinta qiyaamo waman yu'min qofkii rumeeya billaahi ilaahay oo wayacmal saalixan camal fiican qabta yukafir wuu dhaafi canhu xaggiisa ilaahay sayi'aatihi gafafkiisii xumeeyaalkiisa ayuu ilaahay ka asturayaa wayudkhilhu wuxuu gelin jannaatin jannooyin tajri ay dareeraysa min taxtiha xaggeeda hoose alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha gudaheeda abadan weligood daalika arrintaasna alfawzu alcadiim waa liibaan weyn buu yidhi ilah subxaana wa tacaala maalinta qiyaame ee lisi soo bixinayo maalinta laydiin waramayo waxaad camal qabateen waa maalin yowma maalin weeyaan yowma waa maalin yajmacukum ilaahay uu idinsoo kulminayo liyowmi aljamci maalinta kulminta oo dadkoo dhan laysku soo kulminayo uu idinku soo kulminayo subxaana wa tacaala daalika kaa waa yowmu taqaabuni maalinta isdagidda waay dagidda waxaa la yidhaahdaa wax si aad u rabtay si aan ahayn u dhacay saa darteed baa waxaa la tilmaamay ee nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam qof kastoo annaga naga mid ah gurina naartaa loogu sameeyey midna jannada saa darteed baa qofka mu'minka ah markuu jannadiisa galo jannadii loo sameeyey gaal naar galay jannadiisii buu qaadan gaalkii jannadiisii la qaatay ee laga dhaxlay kuwa ay dhaxleen wuxuu qaadan asagana ninkan jannadiisii qaatay naartii daartii loogu talagalou ka badbaaday taasuu markaa qaadanaya waa maalin dhib badan waa maalin kada ah waa maalin la isdagaayo waa maalintii dagidda taas darteed buu ilaah leeyahy maalintaa waa yowmu taqaabun waa maalintii taqaabun waa maalintii isdagidda waa maalintii qof kasta si uu wax malaynayo aysan u dhicin inta badan waxa la dagaya waa gaalada ayagaa qaadanayo dhexdhexlaya naaraha dadka loogu talagalay nin walbow ku talagal maqcadna naarta lagugu talagalay midna janna lagugu talagalay saa darteed buu xadiisku tilmaamaya qofka marka qabriga la dhigo su-aalaha uu ka jawaabo waxaa loo furayaa dariishad naar ah markaasaa lee meesha ma u jeedaa adaa lagugu talagalay laakiin maanta waad badbaado ilaahay wuu kaa badbaadiyey khayrkii wanaaggii aad ku dadaashay oo darteed janna albaab ihaa markaa loo furayaa janno albaabka la tusayaa tiibuu ku raaxaysanayaa maxaa loo tusay tii xumayd way u macaanaanaysaa haddaan dhibkaa la tusin i meesha uu ka badbaaday waxba macnaa la yeelan ma lahayn saa darteed maalinta waa yowmu taqaabun waman yu'min billaahi qofkii ilaahay aaminoo rumeeyo oo yacmal camal qabta saalixan camal fiican yukafir wuu dhaafayaa ilaahay canhu xaggiisa sayi'aatihi gafafyaalkiisa wayudkhilhu wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin tajri ay soconaysa min taxtiha xaggeeda hoose alanhaaru wabiyaalo kala noocnooca khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiiha gudaheeda abadan weligood daalika arrintaana alfawzu alcadiim waa liibaan weyn buu yidhi ila subxaana wa tacaala waaladiina kuwiisa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeennii beeniyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari waa naartii asxaabteeda khaalidiina way ku waarayaan fiiha naartii gudaheeda wa bi'sa almasiiru meel la ahaado oo loo noqdana naartaasaa ugu xun intii kufrisoo beenisay aayaadkii alle intaa waa intii rumaysaye ayaguna waa asxaabu naar bay asxaab u yihiin khaalidiina xaalo ay ku waarayaan ayagana fiiha naartaa gudaheeda
wa bi'sa waxaa baas lahaaday oo xumaaday almasiiru meel la ahaada naartaasaa u xun marjic iyo meel markaa loo noqdo ma asiibto min musiibatin musiibo qofkuma dhacdo wax musiibo ah oo qofku lagu asiibiye ma jirto ilaa biidni illaahi waa ilaahay iraadadiisa subxaana wa tacaala idin ilaahay maahane waman yu'min qofkii rumeeya billaahi ilaahayna yahdi qalbigiisu ilaahay hanuuninaya subxaana wa tacaala maxaa lagu hanuuninayaa waxaa la garansiinayaa musiibadan inay ka timid ilaa agtiisa subxaana wa tacaala wuu sabrayaa waxaa la garansiinayaa wixii gafa inaysan ku dhici lahayn waxaa la garansiinaya wixii ku dhacay inaysan reed mari lahayn sidaa darteed inshiraax qalbi buu qaadayaa welwelkii baa ka yaraanaya meel iyo cataabadii iyo qayladii baa ka yaraanaysa sixroole u tag kan u tag maxaa waaye balaayadan waxaan ku asiibay beryahan dambe waxaan dhibaadkada ee ku daba taagan maca daalika qalbigu ilaahay ka cabira subxaana wa tacaala qalbigiisaa la hanuuninayaa qalbigu hadduu islaaxuu fiicnaada jasadkao dhan baa fiicnaada buu dhahay nebiga hadduu qalbigu hallaaba jasadkao dhan baa xumaadoo fasahaada yahdi qalbah wallaahu ilaahay bikulli shayin shay kasta caliimun waa kii ku cilmi badan wa atiicu allaha ilaahay ateeca oo warkiisa maqla wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca fain tawallaytum haddii aad jeesataan ogaada fa inamaa calaa rasuulina rasuulkeenna dushiisa uun albalaaqun gaarsiin baa ahaatay almubiinun oo cad wax kale oo nebi moxamed loo dirsaday iyo shaqo inuu idinka shaqeeyo qasab aad iimaankan ku qaadataan ma ahee haddaba iska ateeco warkaysa qaata warkooy ilaahay ateeca warhoy rasuulka ateeca ogaada haddaad jeesataan oo ateecitaankii alleh iyo ka nebiga aad diidaan oo aad ku socon weysaan wuxuu idin diray aad raaci weysaan fain tawallaytum fa inamaa calaa rasuulina in kale maba ahee rasuulkeenna dushiisa albalaaqun gaarsiin baa ahaa gaarsiintaasoo almubiinun oo cad waana idinsoo gaarsiiyey maadaa ujibtum baa loogu jawaabaya war ma gaarsiiseen ha waa gaarsiinay inta unbaa laga rabaa waa xajatulwadaac uu dhahay nebiga war hoy ma idinsoo gaarsiiyey haa allaahumma fashhad allaahumma fashhad allaahumma fashhad 3 mar intuu mar cirka farta ku taago yuu dadka kusoo godayay marka hajeesaninee raaca waaye allaahu ilaahay laa ilaaha alla xaqnimaa lagu caabudo ma jiro ilaa huwa asaga mooyaane wa cala allaahi ilaahay korkiisa falyatawakal ha tala saartaana almu'minuuna mu'miniinta aw dadkii iimaanka lahaa talada ilaahay u dhiibta yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaahay rumeeyow ina min aswaajikum xaasaskiinii wa awlaadikum caruurtiina caduwan cadowbay lakum adinka idin yihiin ina min aswaajikum waa min bacdi aswaajikum xaasaskiina qayb ka midii wa awlaadikum xaasas waxaa la helayaa diinka kugu saacidaya cadow aan kugu ahayn mar walba daacada ilaahay ku xasuusinaya ma soo weysay haa waa sabraynaa kaalay tubaa jirta haye waa soo waayey maraq ma aqaane adaa meesha i keensadaye keen meel allaal meeshaad ka keenaysid ani baahi kuma seexanaya caawe aniga saami ihi caawe aniga arrintaa ma samaynayo qolana waxay kugu saacidayaan diinta alleh qolana waxay kugu saacidayaan asxaabu saciir inaad ka mid noqoto jahanamo aad aado saa darteed aan ka digtoonaano cadow waa zawjaadkeena iyo awlaadeena nagama foga saa darteed aad ha laysaga ilaaliyo yaa ayuha aladiina aamanuu inta iimaan laga helay oo rabbigood rumaysay ina min aswaajikum sawjiyaalkiina qaarkood iyo wa awlaadikum caruurtiinaba caduwan lakum cadowbay idin yihiin wiilkii caruurtii gurigay ku joogaan maantoo dhan waa raadinaysaa waxay cuni lahaayeen dharkay ku labisan lahaayeen ciidda waxay xiran lahaayeen laga yaabay intaa in salaad la aadin laga yaabay in laga habsaamo laga yaabay inaan rabbi la xusin marka cadowbay markaa idin yihiin buu yiri ee faxdaruuhum ka digtoonaada nebigoo dadka qudbaynaya oo wacdinaya oo qudba u taagan ba xasan iyo xuseen oo 2 qamiisoo yaryara wata oo soo kufkufaya ayuu ka arko saas usoo dhex socdaa intuu qudbadii joojiyey uu ka degay uu u tegey uu soo qaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam kolkaasuu rug badnaa ilaahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum buu yiri labadan dhibkooda isay usoo kufkufeen baan u adkaysan waaye ilaa khudbadii aan jaray oo aan u tegey oo aan soo qaaday buu yidhi sala allahu calayhi wasalam idan faxdaruuhum ka digtoonaada wain tacfuu haddaad cafisaan watasfaxuu aad ka jeesataan watakfiruu aad iska dhaaftaan fa ina allaha ilaahay kafuuru raxiim waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan annagaana la amrayaa inaan ka digtoonaano maahane ayagu ul nooma haystaan saa darteed haddii ay wax naga nusqaamiyaan ama dembi aan sababtooda u galno ma garaacayno
ma caynayno, war idinkaa saa i yeesheen, war idinkaa maanta salaada saa idiin hilibkiina iyo dharkiina u raadinaya bariiskiina yaan salaaddii ka habsaamay. maya, faraha ka qaad. waa in tacfuu, haddaad iska cafisaan, watasfaxuu, aad ka jeesataan oo saamaxdaan, watakfiruu, aad iska dhaaftaanoo dembigu u dhaaftaan, fa ina allaha ilaahay hafuurun, waa alla dhaafid badan, raxiimun ee naxariis badan. inamaa amwaalukum, maalalkiina, wa awlaadukum iyo awlaadiina, fitnatun waa imtixaan, waa fitno. wallaahu ilaahay cindahu agtiisa ajrun, ajir baa yaala, cadiimun ee weyne. fattaquu llaha, ilaahay ka cabsada oo ka baqa, ma stadactum, intaad kari kartaan, intaad awoodaan ilaahay ka cabsada. wasmacuu, maqla, wa atiicuu, ateecana, wa anfiquu, baxiya oo wax baxsada. khayran, khayr bay lianfusikum, naftiin u noqonaysaaye. wa anfiquu, wax nafaqaysta, wax bixintu waa shay aad iyo aad u weyn. khayran, khayr bay u noqonaysaa lianfusikum, nafyaalkiina. ama wa anfiquu khayran, khayr baxsada oo khayr u hormarsada lianfusikum, nafyaalkiina. waman ruuxii yuuqa la koriyo oo laga badbaadiyo oo laga ilaaliyo shuxa nafsihi, naftiisa bakhiilnimadeeda, fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna, kuwa liibaanay waaye. kuwaasi way aflaxeen buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. maalalkeena iyo owlaadeena waxaana la amrayaa inaan aad iyo aad isaga ilaalina, ilan waa fidne. inamaa amwaalukum, in kale maba ahani maalalkiina un iyo owlaadiina unbaa fidna, imtixaan idinku ah. wallaahu cindahu ajrun cadiim, ilaahay agtiisa ajir cadiima ayaa ahaadee. fattaquu llaha, ilaahay ka cabsada, ma stadactum, intaad kari kartaan. diintu waxaana loogugu talagalay inta awoodeynu ay tahay. waxaan idinka reebana kulli ka taga buu dhahay nebiga. istidaaca kuma xirna. ma kari kara inaan ka tago, waa idib daro. waxaan idin amra intaad kari kartaan kala imaada, ha isdhibin, naftaada ha kadeedin, waxay qaban karto cibaada sameey. fattaquu llaha, alla ka cabsada, ma stadactum, intaad kari kartaan. wasmacuu, maqla amarkiisa, wa atiicuu, ateeca wuxuu idin farayo. wa anfiquu, u baxsada oo nafaqeeya. khayran, khayr u bixiya lianfusikum, nafyaalkiina, si aad beri u heshaan. ama wa anfiquu, nafaqeeya waxa aad baxsataan. khayran, khayr bay u noqonaysaa oo khayr bay idin noqonaysaa lianfusikum, nafyaalkiina maalinta qiyaamee. waman ruuxii yuuqa la koriyo oo laga ilaaliyo, laga badbaadiyo shuxa nafsihi, naftiisa bakhiilnimadeeda, fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna, kuwa liibaanay waay. in tuqridu llaha, haddaad ilaahay u amaahisaan, qardan amaah xasanan ee wanaagsan, yudaacifhu, wuu idin laalaabayaa kaa aad bixiseen lakum adinka. wayakfir lakum, wuuna idiin dembi dhaafaya. ilan sadaqadu dembi dhaaf baa laga helaa. wallaahu ilaahayna shakuurun, waa alla shukrin badan, xaliimun oo dulqaad badan. caalimu lghaybi, haybka allaha ku cilmi badan buu ahaaday. washahaadati, waxyaabaha muuqda. alcasiizu, waa alla casiis ahoo amarkiisa haalib yahay. alxakiimu, falna fiican subxaana wa tacaala. waxa uu samaynayo xikmad ayuu ku jideeyaa, iskama xikmiyo, wax iskama reebo. dadka waxa uu ka reebayana xikmad baa ku jirta walaalayaal. waayo naftooday darar iyo dhibaato ku tahay, diinkoodu darar iyo dhibaato ku yahay. waxana la amrayana cadaadis annagana dul saaraya ma aha, waa wax nafteenana anfacaya, wax adduunkeeni aakhiradeenana anfacaa. xakiim waa ilaahay subxaana wa tacaala. idan in tuqridu llaha, haddaad ilaahay u amaahisaan qardan xasanan, amaha wanaagsan. amahdan ilaahay loo amaahinayo maxay tahay? waa wax bixin, waa sadaqo. waxaa laga dhigayaa maskiinka wax la siinayo adoo ilaahay hortiisa wax horumarsaday subxaana wa tacaala, adoo ilaahay amaahiyey amaah wanaagsan. qardan iyo amaah xasan ah u wanaagsan ayaa loo baahan yahay. maskiinka gacantiisa ku shub, waa bangiraxmaane. allah raxmaanka bangigiisa waa masaakiinta. meeshan baa lagu shubtaa, akoon ahaan xaggaad ka qaadanaysaa qiyaamaha. saa darteed masaakiinta aad iyo aad u ogaada. waxa la baxsanayo oo khayr ahoo dhan, haddii masaajid la dhiso, haddii isbitaallo ummad loo dhiso, haddii wax dacwo lagu wado ummadda la anfacaysa loo sameeyo, haddii agoomo wax la siiyo, haddii garoobo wax la taro, haddii ciyaal dugsiyad wax la taro, haddii qof wax baranayo xir ah la saacido, intaasoo dhan waa amahyo ilaahay xaggiisa aad ka qaadanayso. qardi amah wanaagsan. in tuqridu llaha, haddaad ilaahay u amaahisaan qardan amaah xasanan ee wanaagsan. qardan xasanan yudaacifhu lakum, wuu idin laalaabaya ilaah subxaana wa tacaala. horaan usoo marnay
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أيضا كخير بدن كده أجر ونكسن هل كي أبحثهم حلا متهي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء قفكي دون إلى وأصل لابا تضلو بقول بابا لغاقا سيبادين يا hal boqol shin baad dhiibto 700 baa lagaaga dhigi haddii laakiin ikhlaaskaagu sii sareeyo ilaahay subxaana wa tacaala wuu kuusii laalaabayaa hadba ikhlaaskaa lagu siyaadiyaa yudaacifhu lakum wayakfir lakum wuuna idin dembi dhaafaya subxaana wa tacaala in tubdu sadaqaat fanicmaa hiya wain tukfuuha watu'tu alfuqaraa fahuwa khayru lakum wayukafiru cankum min sayi'aatikum marka sadaqadu dunuubtay baabi'isaa غضبك الرحمن كعرضي سيد باب إساء إلهي حناق وكو عروضي كاتر تريسا صدقضوا مسهلنا صدقضوا واحفظوا معها ويغفر لكم والله إلهي شكور والله شكر بضن إلهي وكو شكر يا أدو مديسة وكا أقبل عمل ذي أي سمايين وحا شكور كلير هذا شكر بدن إلهي دبي عليه سكبيده سبحانه وتعالى مر الله لمرك آت سميسه وحير وعبادة إنو كسيو حسنات فربضن oo aan u qalmin xataa intaad samaysay subxaana wa tacaala saa darteed baa laga yaabaa ilaahay inuu kula mucaamaloodo mucaamalo aad iyo aad u qiimo badan uusan kula mucaamaloon sidaada oo kale hal cibaadaad samaysay hal cibaada lagu siinaya wuu ku laalaabaya subxaana wa tacaala idan haddii kale waa shakuuro ilaahay waa aqbalid badan yahay camalka aad qabanaysaan xaliiman waa alla dulqaad badan adiga oo macaasi ku jira oo rabbi inkiraya oo salaadii diidaa laga yaabaa caafimaad inuu kuu siyaadiyo awooddaada lasii badiyo cilmi iyo aan dhehe caruur iyo hanti laguu siyaadiyo idan waa xilmi waa dulqaad ilaahay axad ka dulqaad badan ma jira subxaana wa tacaala qofka xaliimkee dulqaadka badan waa qof khayr iyo wanaag leh kaada alxaliimu an yakuuna nebiyan qofka dulqaadka badan wuxuu sigay inuu nebi noqdo waayo dulqaadku shay sahlan ma aha caalimu lghaybi waa qaybiyaalka caalimkooda ilaahay wax kasta oo qayb asaa ku cilmi badan washahaadati waxyaabaha muuqda alcasiizu wa alcasiiz ah alxakiimu فلنا وعن سبحانه وتعالى سورة الطلاق بانو قلي دورنا هدي ربي إدمه وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى